macallinow inagu haddaan Soomaalina waxaan nidhi quraan lix arrimood baa lagu baran karaa waxaa ka mid ahaa quraan waxaa lagu baran karaa hooyo qalqaalisa hooyadu hadday ilmaha subaxdii intay diyaariso hooyada la kulanto waa tira ilmaha subaxdii si fiican u diyaari hooyadu ilmaha subaxdii haddii inta iyadu salaada subax u toosto ay tukato oo si fiican u qureeciso si fiican ugu labisto madaxa u soo shanlaysa tiraahdo hooyo khayr allah ku siiyo intay dhunkato orado cashirkii aad nin khayr baa tahay waxbaad ka keeni ana huba macallin fiican baa ku dhiga ay la soo dardaaranto waad garan kartaa ilmaha waxa uu istaagay nisbi kamida moraalkiisi laakiin hadday iyadoo jiifta intay lugta ugu tilmaanta tiraahdo balaaya kugu dhacday meeshii baas baa tagi baa meel lacagtun lagu urursada alla anigu meesha hadda nicdiya warbalad kitaabkii meelaha ka dayo kitaabna garan mayno orod meelaha ka dayo wararad marun baad wax cuni doontaa ee nadhaaf oo iyadoo lugta ugu tilmaamaysa ay soo saartana ilmahaasi inaanu cashir fahmaynin waad og tahay oo aanu waxba baran karin waxaa la yidhi hooyo qalqaalisa aabba quuris leh maalin walba inta ilmahaaga la soo saaro in la yidhaahdo wararad fiigii la kaalay meeshu dee fiibay ku kala socotaa nadhaaf iyadana waa moraal dil weey aabba quuris leh hooyo qalqaalisa loox qaad weyn waagi hore de loox baan quraanka ku dhigan jiray macallin qaariya walad qayla dheer yaa quraanka lagu bartaa baan oran jirnay macallinka qaariga ee codkiisa la maqlo waladka qaylada dheer ee quraanka markuu laaximinayo markaaba qofka dariiqa mariba uu maqlay warkaas wuxuu akhriin muxuu ahaa saaka war macallin kuwa kale aba ku maqlay war macallin war kaamaad ka qabatid oo ka saxdid macallinku inuu tahaawun samayn baa la rabaa عجز إنانو كم مقام الربا إنانو قرآن كان لخلده هي استهانيسن وفضوضيسن بالربا وحياباس إنه هرتكما ما يجرنا قرآن كوحوها مهنا أي ندتك كجسوا عنه قرآن كوحوها وحدتك الصومالي ذا اللي يقانه وحبرته قرآن كوحوها وحينا وحك لبرن إلى قرآن كبرنه وحن كوجا جبينا يا جباد مصرية وهو مسلمة يا سقطيرد وحيكان جرت قرمدا بدوبي كل سجال بقولية تضباطنات كذا يكاهيد تضباطني اللحدي وحي قرطي كتاب ليدا هذا جبنا وحي ليدا الدكتورة زهيرة سكري وحي قرطي كتاب ليدا هذا الإسلام الثوري كعدون كإسلام كعالم ككسمي وحي تري مركان قرمدا بدوبي لا شقينا يسقطير كجودها أي آد وحلام مراجعين جريبي تري جمستياشي يا وحي سمايين يسوي وحق جمستين يعني ما كان رأي ربع قرمدا بدوبي هدي له جودها قال هذا عدان ككلية يعني نقول ضبط صعد بين نسكنه waxay ii sheegeen bay tiri in sababa madaaris badan oo Afrika ka jira oo Quraan loo xiray oo sababihi maxaan ku dhahdaayay tacliinta maxaan ku dhahdaayay aan marka diiniga ku dhisnayn loo saran mariyay oo diiniga loo hoosaysiiyay inay kamid ahayd fikrad la qaatay oo ahayd dadkaynu gumaysanay oo dhan saadaynu u nahay illa dadyowga muslimka mooyee war dadka muslimka maxaynu saadiya ahlu sharaf inoogu arkilaayeen oo nin iyaga kaliituna inoogu arkaan hatta haday kuwa adduunka ugu liitayihiin gabadhaasi waxay tiri waxay yiraahdeen sirta qofka muslimka inuu cimlaaq yahay oo maskaxdiisa mooyato kale aanu qaadan karin badiyaba waa quraanka baa leeyahay quraanka waxa ku jira baa la yiri muslimiintu ilmaha waxay baraan isagoo 7 jira ama 9 jira ama 8 jira wax kala baran waxa la baraa kitaab ay ku jirto konton kun oo kelmadood oo mufradul kalimaha oo kala macna duwan waa quraanka kariimka awey konton kun oo kelmadood oo luqawiya ku jirta bay tiri ilmihi marka cimlaaq buu noqonaya abqari qofaan dadkanba waxba u arag buu noqonayaa maskax ahaan iyo cilmi ahaanba u bislaado naadija gabadhaasi marka waxay sheegtay inay taasi keentay in azhar ninkii ugu sareeya iyo madaarista ingiriisku lahaayeen masar azhar ninka ugu sareeya iyo madaarista ingiriisku lahaa ardayga thanawiga dhiganaya inuu ardayga thanawiga dhiganaya ka mushahar sareeyay ninkii azhar u sareeyay ingiriis oo kale saasa ula dagaalameen bay tiri in tacliintoodana la qiimeeyo iyo waxyaabahan maadiga tan quraanka iyo diintana aad hoos loogu dhigo cagta hoosteeda la galiyo laakiin waxa jira faransiiska oo kale iyo talyaaniga waxay ba adeegsadeen madaarista quraanka in toos loo xidho oo la soo xidhay gabigeeda Zuhayra Sugri kitaabkeeda marka taasay ku sheeg ilmahaagu wuxuu macna ku leeyahay maxay wuxuu macna ku leeyahay kitaabka quraanka fahamsiinta aad fahamsiiso